الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. أصحaabta dhamaantiin waa salaamantihiin. maanta waxaa idin wadaa qiso yar oo kooban oo waqti badan idinka qaadan doonin. sida aan aniga uga faa-ida ayaan waxaa rajeynaya idinkan inaa uga faa-idi doontaan insha allah. gabar ayaa u timaada sheekh waxayna ku tiri sheekhow muddo 20 sano ah ma aanan xanuunsan. markaasuu sheekhu weydiiyey wax xataa oo qandho ah kuma qaban miyaa? maya ayay ku tiri, xataa wax qandho ah ima qabanin. marka sheekhu wuxuu yiri dembiyada kabaa'irta miyaad gashay? cabaar ayay aamusneed kadibna waxay ku tiri haa, dembi kabaa'ir ayaan galay. marka sheekhi wuxuu ku yiri ii sheeg maxaad gashay? waxay ku tiri sheekhow sodohday oo waayeel ah ayaan kala tuuray ayay tiri, ayadoo markii hore qof iska tabcaan oo waayeela ahayd ayaan kala tuuray, marka way dhimatay. waxaa loo maleeyay inay sidaas ku dhimatay, anaana dilayay tiri, waan qariyey, ninkaygana ilaa iyo hadda ma oga. marka ninkaygana wuxuu u haystaa in hooyadiis ay dar alle ay u dhimatay, dadkoo dhan saasay u haystaan, aniga ayaana dilay. marka sheekhu wuxuu ku yiri calaamadan aadan la xanuunsanaynin waxay kamid tahay calaamadihii ehlunaarka ee ilaahay u toobadkeen inta aad nooshahay. marka sheekhu wuxuu kula taliyay inay toobada ay badiso. haddii aad sheekadan aad ka hesheen fadlan like ii saar, janaalkana subscribe saaro. aad ayaa u mahadsantihiin.